taliyaha qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo gaaray degmada Ceegaag waxaana halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay maamulka degmada Cuqaal iyo waxgarad. intaa kadib taliye Mahad Cambaashe iyo gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil waxa ay si wada jir u soo dhaweeyeen 130 askari oo ka soo goostay jabhadda SEC. ugu horreyntiina waxaa halkaa ka hadlay qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay ciidankii soo goostay. waxaan ku soo bixiy Jamhuuriyadda Somaliland inna loo qarameeyo rubnaa ciidanka. waxaa halkaa ka hadlay taliye Mahad Cambaashe iyo sarkaal Cabdiqani Cumar Salwe. dhaweeyaa reer Ceegaag ciidankii hore u joogay ee beereedka ahaa iyo ciidanka cusub ee nagu soo biiray jabhadda SSC sheeganaysa ka yimi odayaasha beesha ee nagala shaqeeyay ama ka shaqeeyay sarkaalka qaybta ka tirsan Cabdiqani isagoo kaalin ka qaatay. waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay in aad naga soo mid noqotaan. waanu idin soo dhaweynaynaa. waxaan u malaynayaa halkan dhowr goor ayaa xaflado laga duubay ciidan oo odhanaya hala qarameeyo. wax badan kama suurtagelin, amarka Ilaahay bay ku dhacdaa. taliska yaga waan doonay, talisku waa nala doonay, alaf baa la cunaa, may suurtagelin. maantay suurta gashay oo aan tani Ilaahay amarkiisa aan rajo aan ka qabnaa. saacaddaa laga bilaabo waxaad ka tirsan tihiin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaad leedihiin xuquuqda intayadaasi aanu leenahay. annagaa nala mid tihiin darajadeeda, agabkeeda, cidda gacanteeda laga sugayaa ee halkan xukunta ee iminka taliyaha qaybta toddobaad aniga weeye. soonkan iyo ile iyo Ceegaag intay isu jiraan waa taqaanin. waxaad ka mid noqonaysaan qaybta toddobaad gaar ahaan weliba. waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanu si wacan oo buuxda idinla shaqayno. wakaa taliyihii qaybta toddobaad saacaddaa laga bilaabo saad ku qaramaysantiin qaybta amarkaynu qaadanaynaa. odayaasha iyo waxgaradka degmada Ceegaag ayaa dhankooda soo dhaweeyay ciidanka. ciidankii qaranka ee muddo badan aan daba joognay ee muddada badan juhdiga aynu gelinay haddaynu ku guulaysanay maanta oo madaxdii u sarreysay guutada toddobaad taliyaheedu inuu hortaagay waa Ilaahay mahadi. ugu dambeyntiina waxaa halkaa ka hadlay xogayaha fulinta degmada Ceegaag iyo gudoomiyaha degmada iyagoo si wada jir u soo dhaweeyay ciidanka. sidoo kale gudoomiye Axmed Ciise Cawil ayaa sheegay in qarameynta ciidanka ay ahmiyad gaar ah u leedahay degmada Ceegaag isla markaana aan laga ogolaan doonin deegaanada Ceegaag cid kasta oo amniga khalkhal gelin karta. waxa ilaahay maanta ka gaadhay waan ku guulaysanay. qaybaha naga harsan insha Allah biidnillaahi kariim si degdeg oo dhaqso baan u helaynaa. goobta aan ku suganahay waa Ceegaag, waa koonfurta Ceegaag. waxaanu soo dhaweynaynaa waftiga iyo Mahad. waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Somaliland waxaa la soo gaaray Mahad Cambaashe maanta. waxaanu codsanaynaa in la soo gaadho dowladda oo dhan dhammaanteed, wasiiro iyo sanaano inayna soo gaadho ayaanu codsanaynaa. taliya degmada waa degmo balaaran, taliya mujtamacu intan maaha, qoriga jooga intan maaha, ciidanka qaranka doonaya intan maaha, ciidanka soo goosanaya intan maaha, uqaasha shaqaynaysa degmadu intan maaha. waxaan kaa codsanayaa taliya Mahad, aniguna aad iyo aad kuu kalsoon. waxaad gaari weyda mooyaane waxaan naga hagranayn xuquuqda aanu leenahay ka reer Ceegaag ahaan inaanu helnay ciidan. Xamse Maxamuud Yuusuf, warbaahinta qaranka degmada Ceegaag.